I'm gonna be in big trouble. I'm gonna be in a big trouble. dhibaato weyn ayaan geli doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Alex, honey, dinner's ready. Alex, dinner is ready aygu tidhi. Alexisow, cashadii waa diyaar. I got an A- on my English test. I got an A- on my English test. Waxaan keenay A- ayaan keenay imtixaankaygii Englishta ayuu yidhi. You did? You did aygu tidhi waad ka baxsatay amase you did waad samaysay qofka waa lagu odhan karaa. Sidoo kale waad ka baxsatay hawsha yacnihii waxaa halkeeda ayaad keentay marka lagu leeyahay oo kale. Carter, we're so proud of you. Carol, we are so proud of you. Carolow aad ayaan kugu faanaa ayay ku tidhi. Carolna waa wiilka kale ee agteeda fadhiya weeye. You. Alex, weren't you supposed to get your chemistry test back today? Alex, weren't you supposed to get back your chemistry test today? Ayay tidhi hooyadii oo ay ka wado Alexow may ahayn miyaa inaad dib u gashay imtixaankaagii chemistryga maanta? Today? How did you do? How did you do? See u qabatay yacni waxay ka wadaa suuqa imtixaankii. How did you do? I did fine. I just feel fine buu yidhi inankii uu ka wado waan fiicanahay uun. Wuxuu qarinayaa markaa imtixaankiisii natiijadu keenay chemistryga. Just fine? This food looks incredible. Haddana waa buu isdhaafiyey maamadii wuxuuna ku yidhi This food looks incredible, mom. Hooyo cuntadan waxay u muuqataa mid cajiiba. Thank you so much for making dinner. Thank you so much for making dinner. Aad ayaad ugu mahadsan tahay samaynta aad noo samaysay cashada. For us, I can't wait to just dig in. I can't wait to just dig in. Ma sugi karayo intii aan cuni lahaa ayuu yidhi halkan. Erey nagu cusub meesha waxaa ku jira dig in. Dig in waa qodista oo qofku markuu meel qodayo laakiin halkan waxaa laga wadaa ardayow cunista ayaa laga wadaa marka ma sugi karayo intii aan cuni lahaa ayuu halkan ka wadaa. Stop beating around the bush. Stop beating around the bush. George marmasiinyaha ay ku tidhi. Ereyga halkan ku yaala waa sarbeeb, waa idiom qofku uu isticmaalo marka aad doonayso qof inaad su'aal weydiiso ee uu iskaa dhaafiyo ayaad ku oranaysaa iga jooji aniga isdhaafinta amase marmarsiinyaha waa halka aynu ka nidhaahno. Dabeedna waxaad oranaysaa stop beating around the bush. Tell me the truth. Runta ii sheeg iga daa macnihii. What'd you get on your test? What you get on your test? Maxaad keentay imtixaankii ay ku tidhi. Waa su-aashuu ka warwareegayey ee uu lahaa maantaba cuntadan waxay u muuqataa mid cajiiba. Just bring it here so we can see it. Just bring here. Kaliya halkan keen so we can see it. Saynu u aragno halkan keen warqadda imtixaanka ayuu sheegayaana. Since you did so well, Carter, we've got a big surprise for you. Great, ayay tidhi. Since you did so well. Ilaa intii aad samaysay wax wanaagsan bay tidhi. Carter waa wiilkii kale la hadlaysaa ee la fadhiyey miiskee. We got a big surprise for you. Waxaanu ku keenay ama ku haynaa yacni hadiyad weyn oo cajiiba yacni surprise oo wax uu la yaabi doono dabcan waa hadiyad. Surprise for you. A surprise? Oh, it must be the new iPhone 15. Oh my gosh. Surprise la yaab bay yidhi. It must be waa inuu noqdaa la yaabkaasu amase hadiyadaasi new iPhone 15. iPhone 15 cusub waa inuu noqdaa oh my gosh isagoo yaaban. Waxaynu ogsoonahay hadalkani inaanu ku socon Alex amase wiilkan ee uu ku socday wiilkii kale Carol ee fadhiyey miiska. Haddana isagaa ismooday. They're never gonna get it for me once they found out that They are never gonna get it for me. Weligood ima siin doonaan. iPhone-kii uu sheegayay
once marka ay they find out that ay taa ogaadaan. Shaygan uu sheegayaa uu leeyahay weligood ma siin doonaan iPhone-ka markay ogaadaan taas. Waxa weeye imtixaankii chemistry-ga oo uu ku dhacay ayuu sheegayaa. Marka wuxuu ka fikirayaa qaabkii uu sheegi lahaa imtixaankiisii chemistry-ga inuu dhacay, haddana khiyaamo ayuu samayn doonaa. Aynu wada daawano. They found out that Let me see. You got an A. That's amazing, son. Let me see. Itus ayuu ku yidhi. You got an A. A ayaad heshay. Yani A ayaad keentay. You got an A. A ayaad keentay. It's an amazing son. Waa cajiib buu ku yidhi wiilkaygiiyo. Why did you tell us that you did just fine? Why didn't you tell us? Maxaad noogu sheegi weyday that you did just fine? Inaad si fiican u qabatay. Imtixaanka ay sheegayaan ay leeyihiin maxaad noogu sheegi weyday inaad natiijo wanaagsan keentay. Inkastoo aynu ogsoonahay in uu imtixaanka wax ka soo bedelay oo qalin cas soo mariyay. This is incredible. I don't know. I want to surprise you guys. That's all. This is incredible. Tani waa cajiib ay hooyadii tiri. Isagina wuxuu yidhi I don't know, ma garanayo buu yaaban yahayba. Waxaan doonayaa surprise you. Waxaan doonayaa inaan idinka yaabiyo oo ay surprise idinku noqoto. Guys, taasun bay ahaydba inaan idinka yaabiyo oo la yaabtaan ayuunban idinku sheegi waayey. I heard you talk to Carter. Does that mean we're getting an iPhone 15? Oh. I heard you talking to Carter. Waan maqlay inaad la hadashay Carter. Wuxuuna ka hadlayay arrinkii surprise-ka ee ay ku lahayd we have got a big surprise for you markii ay Carter la hadlaysay hooyadu ama maamadu. Markaa wuxuu yidhi waan maqlay inaad la hadashay Carter oo arrinkii kala hadashay surprise-ka. Does that mean taas miyay la micno tahay surprise-kii uu sheegayay we are getting inaynu helayno iPhone 15? No. If you must know. If you must know, haddii ay tahay inaad ogaato ay waajib tahay. We're going to Palm Springs to visit your grandmother for the weekend. We are going to Palm Springs. Waxaynu aadaynaa Palm Springs bay tiri. Marka Palm Springs waa meel ku taala waddanka Mareykanka. Inta badanna fasaxyada loo aado. To visit saynu u soo booqanno your grandmother ayayda. For the weekend. Fasax ayaynu aadaynaa toddobaadka. Weekend waxay u yaqaanaan qolyaha gaaladu. Sabtida iyo Axadda ayay iyagu u yaqaanaan fasax yar kooban Jimcaha iyo Khamiista ee noo ah inaga haddii aynu nahay dad Islaama. Marka fasaxaas ay doonayaan inay soo booqdaan marka ayaydood. You gotta be kidding me. If I knew that, I would have just failed the test. You gotta be kidding me. Waad igu ciyaaraysaa. If I knew that, haddaan taa ogaan lahaa, I just failed the test. Imtixaanka waan ku dhici lahaa. Wuxuu sheegayaa in mobilkii iPhone-ka loo iibin waayey oo la doonayo in fasaxa la qabasiiyo maxay ayaydii. Muuqaalkeeni qaybtii koobaad halkaas ayuu nagu egyahay. Muuqaalku sii dheeraanaya tan intaan kala ku darno. Wassalaamu calaykum. Waxaan idinkaga tegayaa nabaday.